بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله مركل إسكوكين سوعريي إلى سبحانه وتعالى يا مهد يهيبد يا شرف يا كرامه يا مال إسكاله. إلهي إسلام كان قديجي أنه حوق يحيلد منك كانسل. الحمد لله نعمة الإسلام، الحمد لله نعمة الإيمان، الحمد لله على كل حال، الحمد لله دائما وأبدا، الحمد لله الشكر لله. سود واضح أحبابي في الله دمانتي والسلام يا ميل كستو عالم كي قلا سعتان إلى سبحانه وتعالى دنبيدين دنبيد والدينتين هداف وإنت حنوسن الله عافية انت مرقيسن مرقت الله كدل قادو انت مراد كله مراد كود خير الله سيو انت لمتين الله ونحريست قبريده واسعية كذا شون الله نوم في النيو آمين يا ربي. سود واضح أحبابي في الله dhammaantiin waa in salaamaya meel kastoo caalamka igala socotaan. maalinteena iyo habeenkeenaba kuwa khayr qaba Allah inooga dhigo, kuwa cibaado qurux badan la yimaada Allah naga dhigo, kuwa in badan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xusa Allah naga dhigo. rabbi ayaa salonsiinta iskale, Allahna salonsiiyo xaqaha nagu sugo. aamiin axbaabi fillah. maanta waa maalin jimcaah, waa maalin aad iyo aad u fadli badan, waa maalintii la salaamin jiray xabiibka sallallahu alayhi wasallam iyo habeenkiiba insha Allah in badan aan ku salino nabiga alayhi salaatu wassalaam. maalinta jumcada axbaabi fillah suuratul kahfina hamooganin oo ka faa'iideyso si aad u heshid nuurka labada wiig u dhaxeeya. sidoo kale saacatul ijaabada ku jirta maalinta jumcada ilaahay subxaanahu wa ta'ala arrimaha kordhigo. ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa samiic waa basiir. saacadaha ugu dambeeya maalinta jumcada nabigeena calayhi salaatu wassalaam wuxuu inoo sheegay inay ducadu mustajaabo tahay la soo celinayn bacda al-casr ayuu nabiga calayhi salaatu wassalaam ku tilmaamay. insha Allah aan ka faa'iideysan axbaabi fillah qiso maanta ay ku jirto ducadaasna waa inoo kugu soo qaaday qisaskeena maantay. qisaskii saliga nabiga calayhi salaatu wassalaam waa jimco walba iga barateen. kusoo dhawaada walaalayaal. maasha Allah saliga nabiga calayhi salaatu wassalaam waa nimco weyn oo aan haysan axbaabi fillah aan ka faa'iideysano adoo saliga nabiga calayhi salaatu wassalaam iyo dikriyada qiimaha badan iyo diinteena macaan adkaaraha qiimaha badan ee ku soo arooray adoo haysta inaad murugooto ma ahan, inaad dhibaatooto ma ahan. maasha Allah afkaagu yuu ku ciilin. mar walba dikriga afka ku hay, mar walba ilaahay subxaanahu wa ta'ala xus. ilaahay wuxuu dhahay i xusa waan idin xusayaaye. marka ilaahay wuxuu rabaa in loo tago la xuso, gacmaha loo horsado, adoonnimada la muujiyo, cibaadada la wanaajiyo. maasha Allah markaas ilaahay kugu farxaya wuxuu leeyahay adoonkaygii waa ii yimid. ilaahay wuu kuu soo dhawaanaya sida ugu soo dhawaato. marka walaalayaal ilaahay ha naga dhigo kuwa ilaahay subxaanahu wa ta'ala mar walba ku xiran. naftayda iyo naftiina waa ku boorinaya axbaabi fillah. waxaan guda galaynaa qisooyinkii laga arkay saliga nabiga calayhi salaatu wassalaam iyo ducada saacatul ijaabada maalinta jimcada ku jirta. qisada ugu horeysa axbaabi fillah wiil baa ka sheekeynaya. wiilkan wuxuu yiraahday duruuf iyo wax la-aan ayaa haysay buu dhahay. wuxuu dhahay diyuun baa laygu yeeshay, waan shaqayn jiray buu dhahay, shaqadii way iga istaagtay, dukaamadii dib ayaan u xiray buu dhahay, u xaraashay anigoo wuxuu dhahay mugdi iyo murugo wuxuu dhahay ku dhex jira ayaan waxaan dhageystay sheekh ka sheekeynaya saacatul ijaabada ku jirta maalinta jimcada ah oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uusan soo celinayn ducadaada. wuxuu yiri runtii maalin walba oo jimca xilliga salaada casar ayaan wuxuu dhahay fariistaa oo ilaahay khalwo maca Allah la yeeshaa. ilaahay subxaanahu wa ta'ala masaajidkan tagaa xilliga casarka markaan tukado kama baxo masaajidka. waxa ugu badnaa oo aan samayn jiray buu dhahay saliga nabiga calayhi salaatu wassalaam ibraahimiyada istighfaarta iyo xawqalada ayaan ku celcelin jiray buu dhahay. alxamdulillah macal wuxuu dhahay macnihii khalwa maca Allah ayaan yeeshay buu dhahay oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo cibaadadaas iyo fadhiga maalinta jumcada fadhiyo aad baa qalbigayga ugu degay, aad baan ugu farxay. wuxuu dhahay xilligaas macnihii ma aanan samayn jirin camalkaas camal aan sameeyo ma ahayn, waayo wuxuu noqday buu dhahay camal noloshaydii bedelay. alxamdulillah
jamca kasta ayaan sameeyaa buu dhahay ilaa hadda alxamdulillah markaan dhowr jamca sameeyay buu dhahay oo saddexda dikri saliga nabiga ibraahimiyada istighfaarta iyo xawqalada aan ku celcelinayay aan ducaysanay ilaahay gacmaha u hoorsanayay farajkii ayaa yimid buu dhahay runtii noloshaydi way isbedeshay qalbiyan iyo fikriyan ayaan isku bedelay buu dhahay runtii anigii qof kale ayaan noqday raxmadaha ilaahay baan helay buu dhahay dhibtii iyo duruuftiina waan ka baxay alxamdulillah ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadda iskale ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu rabaa in loo tago maasha allah allahu akbar waa ujeedaan wiilka walaalaha qaaliga ah weliba maasha allah yaqiin iyo wuxuu la yimid macnihii xaqiijin iyo inuu waqti geliyay maasha allah jamco walbe xilliga casarka ilaa maqribka qof meel u fadhiya khalwa maca allah runtii waa arrin weyn oo cadiim ah maasha allah tabaaraka allah oo dadka qaarkiisna aysan samayn karin aysan awoodin laakiin ilaahay baa waafajiyay noloshiisina way isbedeshay wuxuuna leeyahay mar dambe ma joojin doono macnihiisaan isku bedelay buu dhahay fikriyan caqliyan ayaan isku bedelay buu dhahay iyo qalbiyan ayaan isku bedelay allahu akbar qisada labaad axbaab ilaa gabar baa ka sheekeynaysa gabadhan waxay tiraahday qisadayda waxay tiraahday waxaa jirtay bay tiri arrin igu adkayd bay tiraahday runtii waxay tiri dadkana markaan u sheego ay dhahayeen arrinka waa mustaxiil meesha ma gaari kartide iska daabay igu dhahayeen dadka hadaladooda dhagaha ayaan ka furaystay waxaan laasimay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ibraahimiyada alxamdulillah markaan 8 bilood wado bay tiraahday biyaqiin ilaahayna subxaanahu watacaala aan gacma u hoorsado mar walba ilaahay aan baryo oo ilaahay u tago ayaa waxaa helay bay tiri ijaabadii allahu akbar waxay tiri la tacjabaa bay tiri jawaabta allahu akbar uu ilaahay isiiyey wallaahi waxay tiri ilaahay waa qaadir waana raxmaanu raxiim dadka way yaabeen bay tiri dadka way u qaadan waayeen arrinkayga bay tiraahday arrinkii oo macnihii ii suurta gashay bay tiri allahu akbar arrinkii ii suurta galay biniaadankii baa la yaabay anigii laftirkayga waa tacajabay bay tiri laakiin ilaahay subxaanahu watacaala raxmaan oo raxiim ayaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala oo qaadira ilaahay wuxuu yidhi ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax walba wuu awoodaa walaalayaal inaa macnihi waxyaalaha qaarkood oo aad u adag inaa istiraahdo waxaas ma gaari kartid waxaa ma samayn kari ma ahan axbaabi fillaah وإنا إن شاء الله دذال سميساه إلهينا أتكتا إلهي بريساه ما شاء الله هدا محيش دينتين معانو حينو شاكتي إنا نعمل جنة لغوغلين هدنا إنا ندذالنا وعمل لق وروح بدن الله إيمانو ما iswaafajin kartaa labadaas ilaahay baa ku caalima raxmaanur raxiim ayaa ku caalima axbaab fillah marka walaalaha qaaliga ah waxaa muhiim ah marka ina mar walba adiga aad noloshaada ku dadaashid waxay diintu maxay ku wanaagsan ma sha Allah diinteenu qabto amalada wanaagsan aad dadaal gashatay wax walba oo isleedahay waxa ma gaari kartina waad gaaraysaa runtii gabadhaas waxyaalaha loo soo qoray waxa kamid ahaa inaad noqon kartid madaxweynaha Mareykanka hadda anoo maanta Faadimo Keyton ah haddaan ku hamiyo ka warama madaxweynaha Mareykanka noqonaya waa noqon karaa ilaahay wuu i gaarsiin karaa haddaba madaxweynaha Mareykanka waxaa taladiisa dhan ka soo fushaa wiil yar oo Soomaaliya ku dhashay markuu wadankiisii burburay duruuf iyo gaajo xiriyaha qaxootiga la geeyay Afrikoy dayaydii rafaadkii iyo silicii ku dhoofay tagay Mareykanka ayaa madaxweynaha Mareykanka dhan fikirka wiilkaas ku shaqeeya mafaate waa saas adduunyada lagu sheegay axbaab fillah adduunyada dhan waa saas marka isma dhihi karto marka waxaas waa wax culus waa wax weyn ma gaari karo waxaas iska dhaaf ha isdhihin marna hoos ha isku dhigin حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحها مؤمنك قوية أيا كخير بدل مؤمنك ضعيف كا ولقى يا الله جيسي ولا نقضى ولقى يا الله معنيه وحلا نقف قوية ما شاء الله تبارك ميل والبنه يكسنكر وح والبنه جاري كلا لكن قدرة إلهي سبحانه وتعالى إلهي أتقى عما وهرسة عمل لون وناكسني أسباب تنقيمها بدل وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وكمدي هي لي ماذا ما شاء الله الله أكبر ضد إسلام أن هي إلهي دين معان أو قيمة بدن وما شاء الله تبارك الله إلهي سبحانه وتعالى رحمته سرنتي
haddaad ogaan lahayd malaa'igta markay qalinka qaadaysa markaad subxaanallah tiraahdo sharqanta malaa'igta haddaa maqli lahayd qalimaanta iyo siday u qorayso runtii ma aada joojiseen macnihii dikriga marka muhiim waxaa axbaabi fillaah fikradaha dadkaaga inaad wanaajisatid inaada dhihin macnihi qof hadda kaba soo qaad wax hiigsi weyn leh haddaa dhahday war waxa ma gaari karid qofyo marka qofkii wuu hanjabayaa uu bahalka ma ahan weligaa iyo allaha geesi noqo waad guuleysanaysaa ilaahay baa leedahay garab baa leedahay maasha allah ilaahay subxaana watacaala waxa adduunka kugu jecel waa hooyada iyo aabaha iyo dadka adduunka kugu jecel kaba soo qaadba ilaahay subxaana watacaala ayaa kaa jecel ilaahay subxaana watacaala ayaa kaaga dhow hal mar oo gacmaha u horsato oo intaad waqti yara geliso saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam 3 saacadood u fadhido baa waxa adduunkaaga boqolaal sano kugu soo adkaa baa ilaahay hal mar ku ajiibaya ilaahay baa ijaabada haya laakiin ilaahay wuxuu rabaa biyaqiin ilaahay wuxuu rabaa in loo tago ilaahay wuxuu rabaa in gacmaha loo horsado ilaahay wuxuu rabaa in addoonimada la muujiyo maasha allah tabaaraka ilaahay wuxuu dhahaa xusa waan idin xusayaa mar walba ilaahay xuskiisa ku dadaalno naftayda naftiina ku boorinaya ahbaabi fillaah wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh